الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قف كستا oo fadhiya taytalkiisa ayaan ku salaamayaa ruuyo mudanaba ugu horeeyaan golaha wasiiradu waxaan kaloo leeyahay sharaf bay noo tahay inaan ka soo qayb galno sadra maalintii ugu horeysay xilka la kala wareegayna waan joogay maantana waanu joognaa iyadoo la soo bandhigayo wax qabadkeedii waxaanu leeyahay hal kelmad aan leeyahay waxa weeye dhalinyaradu qofkii bini aadanka wax taraa ma iisho humanka ama dadka ilaahay abuurtay cidii wax tartaa ma iisho qof kasta oo inaga ka mid yahay waxa looga baahan yahay inuu bini aadanka wax taro haddii uu bini aadanku intaa garto waxa weeye waa wax aad iyo aad u qiimo badan xukuumadda runtii golaha wasiirada waxaa ku hadli doona afkooda wasiirada iga dambeeya oo hadda jeer marka hierarchy dawladda la xasumayo qof ayuunbaaba looga baahan yahay xukuumad ahaan ama golaha wasiirada iyo bulshada qaybaheeda kale ayaa ku hadli kara marka waxaanu sidan ugu soo camiray inaanu tusno inaanu sadra la soconno aanu ogol lahay qaabka ay wax u maamulayso dadkii iyo waqtigay soo martay iyo tacabkay soo gelisayna waxaanu uga mahadnaqaynaa waxqabadka ay bulshada soo geliyeen runtii tala wadaagun baa loo baahan yahay bini'aadanku waxaan kaloo ku mahadinayaa inaan arko nin dhallinyaraha gobolka Soola oo han yeeshay oo tartamay oo la doortay oo guddoomiyihii intaana waa markaan waa laga yaabaa waqtiyada ka mida inaan isaga la ekaa meel kasta oo aan soo istaago kelmadda waa idinku celinaya qolada dhalinyarada 99kii 98dii 97dii shirkii Boorame ilaa meesha waxaan ku jiray siyaasadda marba aan level ka soo gaaro laakiin waqtiyada waxaan ahaan jiray qofka ugu yar ee Somaliland xilmeelisa soo taaga ama group siyaasadeed ee meel ka hadlaya qofka ku jira dadka ugu yar baana waxaan maanta ku jira dadka siyaasadda ku jira ama golaha wasiirada ragga ugu waaweyn da'da ugu weyn baan ku jira marka waxaan leeyahay warbaahishu waa la isdaba socdaa ragga maanta fadhiya they will be ministers of tomorrow shaqaun baa laydinka baahay dhalinyarada hadda golaha wasiirada ku jirtaa waa 60% waa rag ka yar 40 golaha wasiirada 60% aniga iyana kaahin iyo xoogaa gimbaan ayaanu nahay iyo oday faratoon la yiraahdo ragga kale inta kale iyo xaaji halkan fadhiyo isaga qubis gooshaale isku soo daday ma qolow raacaya garan mayno laakiin ragga maanta golaha wasiirada ku jira 60% waa da'di aad iyo aad buuna runtii madaxweynuhu rag baa weydiiyo ku yiri dhalinyarada u badiso wixii warmiyaan loo baahnay dhalinyaro siyaasadda soo gasho oo berita siyaasiyiinta noqotay ilayada ku dhow siyaasiyiinta ku dhow inay dabar go'aan looma baahno oo anigoo kale haddii groupka iga weyn lagu wado oo cidiba chainka soo qabsan weydo iyada ku dheeda waa la dabar go'aya marka in siyaasiyiin dhalinyaraha la abuuro waa loo baahan yahay aad iyo aad baan idinku mahadinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waana idinka runtii inaan hadalkaas soo qaatana maahayna hawlo yaryar oo iska local ah ayaan ku jiraa marka assalaamu calaykum